ogeysiis dhammaan ummadda Soomaaliyeed especially taageerayaasha dadka fanka xiiseeya gaar ahaan taageerayaasha walaalkeen Dalmar Abubakar Mukhtaar Maxamed Cali walaalkay Dalmar yare u taqaanaan taageerayaashiisa halkan ka salaamaya gaar ahaan taageerayaashiisa reer Australia horta hambal iyo Dalmarow oo kugu amaanaynaa oo kugu hambalyeynayna waana kugu mahad celinaynaa waliba inaad annaga oo badan oo walaalahaaya oo fanaaniin leh oo DJ leh oo asxaabtaada leh inaad xushmaysay go'aan ragannimadana aad qaadatay showga Australiana aad tanaasushay oo iska kansashay adiga oo xaq u lahaa oo xaq la aha oo flyerkaaga ka miisunta soo hormarsaday oo Soomaaliya dhamar qaatay ka ahayd inaad go'aan fiican qaadato hadalkeenina aad aqbasho noo qabsoonto walaalkeen walaalkay kugu hambalyeynaya go'aankaas aad qaadatay taladeeni aad yeeshay Soomaaliya waxaan idin sheegaynaa Dalmar anaga cishaday haddaan nahay fanaaniinta reer North America intooda ugu qiimaha badnaa ama Dalmar kalowska ay ahaayeen walaalkay DJ Subeer Hodan Cabdiraxmaan iyo anigoo farxiyo kaba yar ah iyo asxaabtiisa kale ee Dalmar ay kalowska yihiinba codsigeeni ahaa inuu showgaas kansalo Dalmar oo naga aqbalo walaalkeen go'aan geesinimadana uu qaatay asoo laga gardaran yahay la disrespect gareeyay marka Dalmar horta marka hore hambalyo reer Australia waxa uu sheegaynaa Dalmar naga cishanay showgina waa kansalnay saasuuna Dalmar ku baaqday this year waxaan la hadlayaa dadka gadaalka gaarka ah dadka fanka hadda gadaalka soo galay ee dhowrka sano loo camiray inta gadaalka gaarka ah ee fanka gadaal hadda ka soo gashay dadka gadaalka gaarka meeshaan Mareykan la yiraahdaa fanaaniinta adduunka qurbaha inta joogta fanaan kasta wadan iyo magaalo degan yahay loogu soo martiyo oo dadka ku soo dhaweeyo oo gobonimadii iyo sida looga baahnaa markii loo soo martiyo fanaan kasta waajibna loogu lahaa inuu guto annagu dadku waa soo dhaweynaa waana xushmaynaa Dalmar gabadha walaashiisa ee disrespectiga ku samaysay sidoo ugu soo dhaweeyay Minnesota oo kulligan ugu soo dhaweynay Soomaalidu waa ogeyd kulligiina waa ogeydeen reer Yurubna waa ogeeyeen laakiin abaal gud waxay ka dhigtay disrespect oo waliba aan halkan uma baahnin aan ku faahfaahiyo laakiin oo anagu waxaan isku daynaa inaan wax walba hoos u dhaqno way shaqeyn weyday disrespect bay jawaabtii oo dhan ka dhigtay iyo xushmad darro waxaan marka go'aansan anagina walaalkeen qabsano walaalkeen anaga qabsanay showgaas Australiana anaga go'aansanay Dalmarna ka codsanay inuu hadal iyo dhamaantiis DJ Subeer iyo aniga iyo Hodan Cabdiraxmaan iyo asxaabti Dalmar ay kalowska ahaayeen oo dhan waxaan ku faraxsanahay inaan ku guuleysano walaalkeen Dalmar inaan baajino kana kansalno showga Australia sababta aan ugu soo hadlayna waa inaan ahay afayeenka fanaaniinta Soomaaliyeed intooda xushmada leh ee respectiga leh ayaan afayeen u ahay uma yihi inta saqajaamada ah ee fanka dalada fanka nala sheegata ee ciyaal suuqinta ah uma yihi aniga ee afayeen laakiin inta respectiga leh xushmada leh ee fanka wax ka taqaana afayeenkooda ayaan ahay maadaama aan ahay mid kastoo dulmi ku jira ama la dulminaayana inaan ama qabto ama dulmiga uga hiliya la dulminaayo ama aan u hiliya ama aan ugu hiliya inaan qabto ama aan dulmi lagu sameynaayo aan ugu hiliyo garabkiisa istaago fanaaniinta mudan afayeenkooda aan ahay walaalkeen Dalmar hambalyan ku leeyahay waxa soo haray Diini walaalkeen reer Australia Diini iyo respect aan ku haynaa oo ku xishmaynayna walaalkeena tahay insha Allah hawsha Australia ka socoto wax badan ka bedeshaan ayaan jeclaan lahaa waana idin jeclahay